Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ah ee ku xidhan Hani Lucky Channel. Maanta qisadeenu waxay ka hadlaysaa hooyo 3 caruur haysata. Waxay ka shaqaysaa iskuul oo ay soo nadiifisaa. Caruurteeda waxay ku korisaana waa bishii mushaharka ay ka qaadato iskuulkaas. waxaana ku nooshahay tuulo yar. Hooyadan waa hooyo cibaado badan, salaadeeda ilaalisa, habeenkii salaatuleelka tukata, ilaahay barida. Hooyadan waa hooyo maalin walba u diyaarisa caruurteeda. 2 wiil, caruurteeda waa 2 wiil iyo gabadh, u diyaarisa cuntadooda intaanay tegin iskuulka iyaduna aanay shaqada tegin. maalin maalmaha ka mid ah haddaba waxa dhacay in lacagtii yareed ee haysteen ay biilka ka dhiganayeen ay ka dhamaatay iyadoona weli bishii dhammaanin. lacag aad u yar ayay haystaan, lacagtaas oo ah 5 shilin oo ka mid a lacagta waddanka laga isticmaalo. waana lacag aad u yar, intaas oo keliya ayay shandadeedii ka heshay. hooyadii waxay go-aan ku gaadhay inay 5 shilin berri ciyaalkeeda quraac ugu samayso, wixii kalena insha Allah alla ayaa keenay. hooyadan waxay ahayd hooyo ilaahay mar walba mala wanaagsan ka malaysata, mar walbana rabbi tala saarata. hooyadii caruurteedii waxay u sheegtay inay 5 shilin oo keliya haystaan, ilaahayna arrimahooda u dhiibteen, intana ay samaysan doonaan berri ku iibsan doonaan roodhi. inta laga gaadhayo bisha dhammaadkeedana insha Allah ay wanaag rajaynayaan. iyagoo sidaa u jooga hooyadii oo hadalka u sheegaysa caruurteeda, waxa kusoo tuntay jaarkeeda. gabadh jaarkeeda ah ayaa albaabkii kusoo tuntay. gabadhii way u soo gashay, waxaanay weydiisatay lacag 5 shilin ah inay siiso si ay caruurteeda ugu soo iibiso cunto, maadaama aanay gabadhaasina kaba sii faqiirsaneed gabadhan oonay waxbaba gurigeeda u oolin, yacni 5 shilinna aanay haysanin, inay siiso iyadu 5 shilin si ay cunto caruurteeda ugu soo iibiso. hooyadii iyadoon wax kaleba ka fikirin ayay intay baxday 5 shilin meeshay ku ogeyd ay ka soo qaaday ayay gabadhii siisay. iyadoon ka labaynin ayay siisay gabadhii, iyadoo u jeeda gabadhani in iyadaba kasii liidato. gabadhii markay baxday ee albaabkii soo xidheen, mid ka mid a caruurteedii ayaa gabadhii u yimi isagoo kule, hooyo maxaad samaysay? 5 shilinaynu haysanayba gabadhii ayaad siisay, miyaadad annaka naga fikiraynin? gabadhii intay dhoola cadaysay ayay ilmaheedii ku tiri, hooyo macaan, gabadhan waa jaarkeenna, waanay inoo timi oo inaga ayay waxina soo mooday. xaaladeenna aynu ku jirnana xaalad ka xun ayay ku jirtaa, sidaa awgeed ayaan u caawiyey, inaguna alla ayaynu tala saaranaynaa, waxbana ma waayeyno insha Allah. ilaahay ayaana inoo soo diraayo waxaynu gabadhaa siinay. ilmaheedii intuu yaabay ayuu yidhi, hooyo sidee taasi ku dhacaysaa? hadda waaba habeen, tuulo yarna waynu degannahay, berri subaxa horena waxaad rabtay lacagta yar inaad inoogu soo iibiso roodhi. sidee ku dhacaysaa markaa caawa iyadoo tuuladu sidaa u yar tahay, dad badanna aanay deganayn, habeenna ay tahay, inuu ilaahay inoo soo diro lacagtii isla caawa? gabadhii intay dhoola cadaysay ayay ilmaheedii ku tiri, hooyo ilaahay malaha aan ka qabo wuu wanaagsan yahay, waana ku kalsoonahay ilaahay inuu inoo soo diraayo lacagtii aynu gabadha siinay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idhi, waman yatawakkal illaah fahuwa xasbuh. qofkii alla tala saarta alla ayaa ku filan. waxba ha ka werwerina hooyo eeyna mariya seexane eh. hooyadii iyo caruurteedii way iska seexdeen. sidii caadada u ahayd hooyadii habeenkii saqbarhka ay kici jirtay, salaatuleyl ay tukan jirtay, ayay soo kacday iyadoo alle u tukanaysa. markii gabadhii ay salaadeedii tukatay, ay ducaysatay, salaadii subaxna la gaadhay ee salaadii subaxna tukatay, gacmaha ayay cirka u taagtay iyadoo leh, ilaahaygiyow, wax cunto ah gurigeyga ma yaalaan, waxaana la gaadhay oo soo dhow wakhtigii aan caruurta cuntada u doonin lahaa. waxaan caruurtaydiina u sheegay inaad adigu nagu filan tahay. rabbiyow raxmaadow, waxaan kaa baryayaa inaad ii soo dirto lacagtii aan caruurtayda ugu soo iibin lahaa roodhida. hooyadii markii la gaadhay wakhtigii ay caruurteeda u soo iibin lahayd quraacda ayaa albaabkii lagu soo tumay. markay albaabkii furtayba, mise waa gabadh ay jaar ahaayeen oon u imanin beryo iyo beryo, yacni wakhti hore ay ugu dambaysay. gabadhii waxay ku tiri,
iga raali noqo, waan ku ilaabay. Inantaydii ku nooleed qurbaha ayaa ilmo dhashay. 5 sannadood markii ay reer lahayd ayuu Ilaahay ilmo ku arsaaqay inantaydii. Waxaanay iga dalbatay inantaydaasi farxadda awgeed si ay Alle ugu mahad celiso in tuulada gabadh kaste oo carmal ah oo degan aan lacag siiyo 50 shilin, yacni 50 ka mid a lacagtii meesha laga isticmaalayay ayay iga dalbatay inay u qaybiso. Yacni gabadh walba oo carmal ah inay siiso yacni lacag 50 ah. Dadkii oo dhanna waan siiyey bay tiri lacagtii, oo gabadh walba oo carmal ahayd 50 ayay soo siisay. Laakiin adiga ayaan ku ilaabay. Xalay toole xilli dambe markay ahayd ayuu Alle kaa soo xasuusiyey. Hadda ayaan kuu imi ayay tiri si aan kuu siiyo 50kii. Gabadhiina way u mahad celisay gabadha ay jaarka ahaayeen, waanay kala tegeen. Markii ay gabadhii ka baxday ayay gabadhii farxad awgeed intay cirka gacmaha u taagtay ayay tiri maa acdamak yaa Allah, ilmahayga waxaan u sheegay inaad noo soo diri doontid 5 shilin oo keliyata. Adiguna yaa Allah yaa Kariim waxaad noo soo dirtay 10 jibbaar lacagtii aan u malaynaynin inay noo imanayso. Allah ayaa mahadoo dhan iska laka alxamdu washukr yaa man tudabbiru umuuru lkhalqi jamiica. Mahad oo dhan Rabbiyow adiga ayay kuu sugnaatay. Qisadan qiimaha badan leh ee sadaqada ku saabsan gabadhii hooyada ahayd intii yareeday haysatay waa tii gabadhii jaarkeeda ahayd u naxday ee xaaladeeda kasii darneed ay siisay. Ilaahayna uu ugu soo bedelay khayr fara badan oo intii ay bixisay in badan ka badan. 5 shilin ayay bixisay, 50 ayuu Alle uga soo dhigay. Qisadan waxaan ka faa'iideynaa sadaqadu in aanay nusqaaminin xoolaha ee ay siyaadiso. Adduun iyo aakhiraba Allahna xafido. Mar walbana Alle waxaan ka baryaynaa waxaan sadaqadaysano in aynaan waayin. Walaalaha qaaliga ee ku xidhan channelkayga Hani Lucky Channel, qisaskan aad baan u jeclahay. Channel kala jiro qisaska soo gelin jiray, laakiin waxaan ka daalay inaan marba channel wax geliyo maadaama channel kalena leenahay oo caruurta channel la yiraahdo. Hadda marka waxaan ku eegahay channelkan iyo channelka caruurta channel. Waan idiin soo gelinayaa kan casharada iyo qisaska haddii Alle idmo. intaynu kaga kulmayno qiso kale cusub insha Allah waxaan idin leeyahay fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.